kusoo dhawaada janaalkeena quruxda caruurta maanta maxaa idiin wadnaa waa su-aasha waa maanta waxaa idiin wadnaa waa ujeedin bacda horteena taalo waxaa ku jiro misir waxaa ka sameyn doonaa bajiye ilaa yiraahdo ramadaan kariim ramadaan waa dhaktar waa markaa wax u qoofka in laga sameysto in isku dadaalo marka insha Allah taaga ugu jirsan yahay biyaha la soo dhigayaa waxaa waa cabirana hadda waxaa rabaa qiyaasta 3 koob camal oo markii maanta jirto 3 koob ku shuban oo bakeerigaas ku soo cabiranaya ku marka biyo soo shuba kan biyo badan ma qaadsid digirta oo kala adag ma ahan 20 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo suuqa ka bacd qolofta waa soo nadiifin oo isku soo noqonayna insha Allah la socosho wanaagsan markaas oo isku soo noqonay 20 daqiiqo kadib geedka waxaan ku jeclaa 5 daqiiqo waa biyo badan aad waqti markaa dhimanayso maxay ahayd 5 daqiiqo qolofta kala fuqfuqa sida digirta oo kale habeen biyo la barsiinayo ma ahan بجيهدنا كال إسكار معاهم واي ما في إن شاء الله ساسا قربت وصول دمين وصولنا ليفنا واسكسوا نقونينا إن شاء الله لسعشوا ونعسر وهذا ما شاء الله واسكسوا نقوني وأوجيدين وصول ديال وصول نذيفي وصول رقي سوى نفسنا وصول قشن كده ما كسوا ببحية دقيرتها وحاكو جعل هذا صوتهم دقيقة وقت لن مكانوا من يسو halkaas waxa ku haysanaa toon bisbaaska dhowr xabo dada bisbaas cunna jiro oo rabo loo diyaarina ku jiro hal xabo basal weyn ah kabsar caleen iyo toon shiidan halkaas ay ugu jirtaa xagga ka isticmaalaya marka insha Allah mashiinka ku soo shiidaya oo soo diyaarsaday oo isku soo noqoneena insha Allah la soo wanaagsan soo diyaarsaday kabsar caleenta toon shiidan hadhow ku daraaya because way shiidan tahay marabi marka shiida ku isticmaalaya insha Allah la socda ma sha Allah wali duusti inoo socoto saan ku soo baxay biyaha la soo idimaya intaan kala ma sha Allah waa u jeedin sida quruxda badan ku soo baxay ka faa'iideysa ramadaan kariim kullu caam wa antum baqayr meel walba aad joogtiin walaaleyga sharafta leh waxa idin ka codsanaya subscribe share like comment wixii taliyo tusaale waa dhankiina wixii dhiirigelina waa dhankiina insha Allah ta'ala waa ka faa'iideysi wa salaam